haddaba 7 Juun 2018 مسؤول maamulka Somaliland oo hadlay oo la yiraahdo injineer Faysal Cali Waraabe wuxuu cadeeyay inuusan jirin wax la yiraahdo shabaab iyo Daesh wuxuuna ku daray al-shabaabkii ay laayeen ciidamada Puntland inay ahaayeen ciidamo kale oo isagu ogaa magacyo kalena uu ugu yeeray isagoo ku sii daray mas'uulkaasi oo hadlay Somaliland in la laayo dhammaan ardayda reer Puntland ee wax ka barata jaamacadda Amuud ama Somaliland oo dhanba haddaba dawladda Puntland waxay u sheegaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dawladaha la dagaalama argagixisada caalamiga ah in hadalka mas'uulkaas uu yahay cadeyntii ugu dambeysay ee ay Puntland ku cadeynayso in Somaliland iyo al-shabaab isku mid noqdeen ayna Puntland dagaal kula jirto isbahaysi ballaaran oo duulaan ku ah amniga mandiqada oo dhan sidoo kale waxay dawladda Puntland u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dawladaha la dagaalama argagixisada caalamiga ah in xubin ka tirsan al-shabaab oo loo soo diray in ay isku qarxiso shacabka Puntland oo ay ciidamadu ka hor istaageen falkaasi arxan darrada ah uu ugu dambeyntii isku qarxiyay dalka Suuriya sanadkii 2017 baaritaan kadib dawladda Puntland waxay ogaatay in xubintaas argagixisada ah oo la oran jiray Sayid Xuseen Faysal Cali Waraabe uu dhalay mas'uulka 7 Juun cadeeyay in al-shabaab wax la yiraahdo aysan Puntland ka hoggelin ee ay yihiin ciidankaasi ciidan uu isagu si gaar ah u og yahay oo fuliya siyaasadda xasuuqa iyo isqarxinta ku salaysan ee uu ka wado maamulka Somaliland dalka Soomaaliya oo dhan